waan ka faa'iideysan karnaa laakiin ma jirto xorriyad. markii hore aan ku kicino shucuurta ummadda Soomaaliyeed si ay go'aan uga gaaraan masiirka iyo rabitaankooda nolosha sida ummado badan ee imika horumaray ay sameeyeen. inagoo malaayiin ah ayaa shakhsiyaad aanan boqol gaaraynin ay nagu barwaaqoobeen iyagoo u iibsanaya hantida qaran ee malaayiin ay leedahay. halkan waa meesha ay ka dhimatay Soomaaliya, laakiin nasiib wanaag imika waa xilligii aynu ka gaari lahayn. si aan u badbaadino ummad iyo masiirkeeda waa in ummadan Soomaalida kicitanka shucuureed lagu beero. haddii ay jirto isku duubni abaabulan, hubaal waan ka adagnahay birta iyo shisheeye u adeegaha iyo shisheeyaha, laakiin shakhsiyaad qabiil lagu gacansiiyey ayaa adeegay oo ay ka qadeen shacabkii Soomaaliyeed oo idil. halgankani fursadiisa maanta waxa iska leh dhalintani ku cataawaysa shaqo la'aanta. ma ahan kuwa shisheeyaha u adeegaya ee waa kuwa go'aan ka qaatay inay noqdaan Soomaalida cusub. saadaasha lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inuu gaarayo 110 bilyan oo fuustooyin shidaal ah. bal ka waran Soomaaliya haddii ay 20 sano ay kaliya ka faa'iideysato shidaalkaasi heerka uu gaarsiin karo. saadaasha dadka qaarkii ayaa waxa ay ku tilmaameen in Soomaaliya ay soo galayso dalalka ugu qanisan caalamka haddii ay ka faa'iideysato 110 bilyan ee fuustooyinka shidaalka ah ee kheyraadka uu alle ku manaystay Soomaaliya. laakiin ma jiraan dad ilaa hadda go'aan qaatay kuwaasi oo masiirkooda iyo rabitaankooda inay ku hogaamiyaan danaha guud go'aansaday. laakiin weli waxaa shaqaynaya shakhsiyaad garab lagu siinayo qabiilka isla qabiilkiiba ay ka qadeen. Soomaaliya mid ha noqoto mar waliba midnimada iyo isku duubnida Soomaaliya ayaanu bogaadinaynaa. laakiin haddii aynan dhicin isku duubni iyo midnimo Soomaaliya oo hubaal Soomaaliya waxay noqon doontaa wadan uu ka faa'iideysan doono gumaystaha. laakiin inta aynu imika ka gaari karno aynu kacno oo aan u dhaqaaqno tubtii nolosha iyo horumarka si aan uga mid noqono wadamada ugu qanisan caalamka, taas oo lagu saadaaliyay Soomaaliya haddii ay ka faa'iideysato 110 bilyan ee fuustooyinka shidaalka ah in ay 20 sano gudahooda ay ku soo gali karto wadamada ugu qanisan caalamka. ilaahay aynu rajayno go'aanka nolosha iyo rabitaanka masiirkanaga mustaqbalka aynu qaadano. Soomaaliyada cusub waxa ay ka bilaaban kartaa in markii hore aynu qaadano go'aan aynu ku ciribtirno wax walba ee kala fogeynaya Soomaalida iyo shakhsiyaadka ku barwaaqoobay oo ay ka qadeen shacabkii Soomaaliyeed. dal waliba ee dhismay ee imika qani ah waxa heerkaasi gaarsiiyay go'aan qura oo ay shacabkiisa qaateen.